السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابداش ku xiran channelkayga Dr. Sujiya kusoo dhawaada walaalahayga qaaliga ah meel walba aad joogtaan dunida daafaheeda. Kusoo dhawaada cashirkeeni inoo socday qaybteeni labaad wiiga koowaad haddaba waxay inoo joogtay maalmaha 13 iyo 14 maalinta 15 ee xilliga bilaabaysa gabadha waa waqtiga ugu wanaagsan ee aad uurka yeelan karto. Laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay sidee lagu ogaan karaa haddaba qaybtani labaad one week uurka ugu horeeya. Haddaba si aad u ogaato samee waxyaabahan hoos ku xusan in aad markaas uur leedahay iyo in kale. Waxaa kamid ah waa in aad tirisaa maalmaha adigoo kasoo bilaabaya maalintii kugu horeysay ee aad isku aragto dhiigga caadada ama bilowga dhiigga caadada ah. waa in aad markaas soo hubisaa iska cabir heerkulka ama temperature-ka markaas u taqaaniin, waayo fertilization dhiigga marka uu dhaco waxaa hoos u dhaca heerkulkaaga ama maalinka 16aadna waxaa laga yaabaa in uu sare u kaco. sidaa darteed markaa waa qodobka koowaad ee lagu xaqiijin karo uurka. qodobka labaad, tijaabi dheecaanka imaanaya xubinta taranka. sida caadiga ah ee xubinta taranka waxa uu leeyahay ama ka imaada dheecaan jilicsan oo yar oo loo yaqaano cervical mucus. laakiin maalmaha taranka ee isbedela ayaa ku yimaanaya dheecaankaas wuxuu isku bedeli doonaa dheecaan markaasi adag misana badan. haddaba waxaa kaloo kasoo gadan karta ama isticmaali karta ovulation-ka farmasiyaasha kasoo gadan kartaa qalabka markaasi uurka lagu baaro. caloosha uurku jiifta dhanka hoose ayaa xanuunta gabdhaha marka ay ku jiraan fertilization-ka dhiiska. adiga iyo toddobaadka koowaad si aan kor kusoo xusnayba toddobaadka koowaad uur ma lihid. waxa uu uurka bilowdaa maalinka 14aad, laakiin labada toddobaad ee ugu horeysa dhakhaatiirtu waxay ku daraan muddada uurka si loo ogaado da'da saxda ah ee uurku jiifta ama loo qiyaaso maalinta ama toddobaadka ay gabadhu umuleyso. marka la doonayo in la ogaado inta maalmood ama bilood uu uurku jiifta ama uurka cunuga uu ku jirayo maalintii xilligii cadadkii ugu dambeeyay ee last menstruation period-ka. haddaba maxaa la doonayaa in aad sameyso uurka ka hor? qaado cunto folic acid, waa fitamiin muhiim u ah koritaanka waxaana laga helaa cunada sida khudaarta cagaaran, cuntooyinka burka laga sameeyay, digirta iyo wixii lamid ah. waxaana loo yaqaanaa folate, laakiin waxaa jira isagoo kaniini ah oo loo yaqaano folic acid. in aad qaadatid uurka ka hor waxay kaa caawinaysaa inuu canugaaga ka badbaado dhibaatooyinka maskaxeed ee la xiriira sida spinal cord oo kale. iska talaal fayruusyada jadeecada si canugaaga uga badbaado. dhakhaatiir u tag haddii ay jiraan cudurro dhaxalgal u ah ama qoyskaaga ay jinsi ahaan ay wada leeyihiin. baaritaan caafimaad mar oo dhakhtar la talaasho haddii aad horay isaga aragtay cudurrada karka, sokorta iyo qalalka wixii la mid ah. iska jooji kafeyga iyo daawooyinka marka laga reebo xanuunka baabi'iyaha ama paracetamolka. sidoo kale markii laga reebo waa in aad joojisaa dhammaan daawooyin kasta haddii markaasi aad qabtidna cudurro oo markaasi dhaxalgal ah ama sida dhiigkarka iyo macaanka sokorta oo kale waxaa la xiriiraysaa kaaga markaas khaaska ah. iska qaado cunto iyo isku dheelitiran oo ay ku badan yihiin fitamiinada iyo mineralska. sameey jimicsi si joogto ah si markaasi aad u hesho firfircooni. waad ku mahadsan tahay in aad nala daawato ama muuqaalkeena aad daawato. haddaba fadlan subscribe inoo daawo channelka taa ku cusub tahay, muuqaalkana la karay. waxaa su'aalaha qabtana noogu soo gudbi qaybta commentiga ama facebookayga Dr. Sujiya Abukar noogu soo gudbi ama WhatsApp number noo saaran page-kayga Facebook ku qoran Dr. Sujiya. waad ku mahadsantihiin.